Murashaxa Xisbiga WADDANI Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Xero iyo gudoomiyaha xisbigaasi Xirsi Cali Xaaji Xasan oo ku sugan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa waxay shir joogta oo ay leeyihiin hoggaanka dhaqanka ee beelaha Garxajis iyo Habarjaro ay ka bilaabeen magaalada Burco iyadoo uga gol leh inay ku kasbadaan taageerada beelaha ee hoggaankooda dhaqanka kula shirayaan magaalada Burco sidoo kale waxay wararku intaasi sheegayaan in labada hogaamiye ee bulshada gobolka Togdheer ay ku abuurayaan inay diidaan oo aysan marnaba aqbalin xeerka furista ururada oo hore ugu tilmaamay xisbiyada mucaaradku sharci darro inuu yahay shirarkan oo ay saxaafaddu dibadjoog ka hay'adaya intooda badani waxa uu daaranaa sidii ay mucaaradooda u sii xoojin lahaayeen xisbiyada mucaaradku oo gaashaanka ugu sii daruuri lahaayeen xukuumadda hogaamiye madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo khilaaf xooggan kala dhexeeyo mucaaradka iyo xukuumaddiisa ilo xoogagaal ah oo uu helay telefishinka caalamiga ee Gobanimo TV ayaa sheegay in labada hogaamiye waa musharaxa xisbiga WADDANI Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Xero iyo gudoomiyaha xisbiga Xirsi Cali Xaaji Xasan oo labadoodaba ku jira shirar hoose oo ay leeyihiin waxgaradka reer Burco ayaa waxay muujinayaan sida ay dardarta u gelinayaan shirarka ay kaga soo horjeedaan xukuumadda uu hogaamiyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo isku hayaan xeerka furista ururada siyaasadda oo xildhibaanada muxaafidku ay hore ugu gudbiyeen maxkamadda sare ee Soomaaliland oo la filayo inay dhawaan go'aan ka soo saarto khilaafka ka dhashay xeerka furista ururada siyaasadda ee xeer 14 wararku waxay intaasi ku darayaan in taageero lama filaan ay dadka deegaanka Togdheer ay ka heleen hogaamiyaasha xisbiga WADDANI oo safar toddobaadkan ku jooga magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer beelaha Garxajis iyo Habarjaro oo ay la kulmeen ayay ka heleen taageero weyn iyo ballanqaad ah in cududooda iyo maskaxdooda ay ku taageerayaan xisbiga mucaaradka ee WADDANI oo sanadkan u diyaarsan sidii uu kursiga madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland looga arrimiyo ugu guuleysan lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo isagu ah musharax sida ay warar hordhacay sheegayaan isku soo wada duubo Shir-doceedyo ay labada hogaamiye xisbiga WADDANI ka bilaabeen magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa la sheegay inay ku abuurtay shaki xukuumadda uu hogaamiyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ma ogtahay macmiil in abka sariflaha bulsho aad si sahlan ugu kala bedelan karto lacagaha dollarka iyo shilinka sidoo kalena aad u isticmaali karto adeegyada lacagaha ee shirkadaha isgaarsiinta saad iyo e-dahab si dhib yar lacag ku dir ku iibso ku shubasho ku hadal lacag la bixid iyo ku shubashada adeegyada kaafiye iyo muraad ee shirkadaha Somtel iyo Telesom bulsho sarif mar kasta iyo goor kastaba adeegso oo ka dhigo wehelkaaga sariflaha bulshadu isku raacday bulsho sarif